إنا لله وإنا إليه راجعون نكي أسد حاج يوها صاحب يعني نكي أسد حاج يوها يوتيوبر كي عانك أها wuxuu sameeyay arin aad iyo aad u falxun wuxuu ku sameeyay gabar yar oo uu dhali karo oo saqiir ah ayuu wuxuu ku sameeyay arin lagu tilmaami karo kufsi arin kufsi weeg ayuu ku sameeyay oo gabadhii afka ayuu ka shimiyay ama afka ayuu u saaray oo uu ka dhuuqay saaxiib ayaa arintan waa arin aad iyo aad u falxun hadaan laga hortagin Soomaaliya waxyaabo ka waaweyn baan sameyn doonaa maadaama dadkeena caanka ah youtuberadana caanka ay sameynayaan waa arin aad iyo aad u falxun hadaan hadda ka hortag la sameyn waxa la yiri ka hortagu wuxuu ka wanaagsan yahay istaaweynta ay Soomaalidu dhihi jirtay iyo carbuhuba laakiin saaxiib ay arinta hadaan laga hortagin wax ka waaweyn baa soo socda ninkii asal xaajiyo ah wuxuu sameeyay arin xun oo aad iyo aad u qaabdaran gabar ayuu ku yiri ishumi am xagga iga dhunka gabar yar uu dhali karo gabadh yar tahay waxa u socota daankiisa inay shumso daankiisa isagoo rabto inay dhunkato wuxuu ku soo jeeday afkiisa markuu ka dhuuqay wuxuu ku sameeyay hooyadii gabadha dhashay oo la fadhida ayaa qosashay oo qaylinaysa hooyada noocaas bilaa damiirka ah maxay ahayd hooyada noocaas oo gabadheedii yar laga dhuuqay noocaas maxay ahayd Soomaaliya oo wax aad iyo aad u falxun youtuberkeen inuu sameeyana waa wax anagu ay isku geysanay Soomaaliyay ninkaasna waa in arin degdeg laga qabta sharciga waa in wax ka soo saara diintu ma qabto gabar yar oo sabi ah in afka laga dhuuqo diintu ma qabto hadaan laga hortagin arinta arimo ka waaweyn oo kufsi cad oo saqiiro loo geystay ayaa soo socda ninkii asal xaajiyo ahaa taqaaneen oo sida fiidiyoosha soo duubi jiray oo sida xushmada la soo duubi jiray maanta wuxuu dhex fadhiyaa dhiiqo ayuu dhex fadhiyaa oo ninkii wuxuu sameeyay gabar yar oo saqiir ah ayuu wuxuu u geystay arin aan la sheegi karin oo afka la soo marsiin karin ninkan hadaa imaqlayso asal xaajiyo fariinta ku soo diray waxa way arinta si degdeg ah uga soo fariiso arinta ka hadal si degdeg arinta uga soo hadal Soomaalida oo dhan ayaa arinta la yaaban ninkan waxa uu sameeyay isagoo nin weyn youtuber oo meel sare Soomaalida u jooga hadii waxa uu sameeyay dadkii kale maxay sameyn doonaan oo anigu bari kamaal maxaa sameyn doonaa maadaama isagu role model aha isaga ani role model aha saxaajiyo role model aha maxaa sameyn doonaa maadaama isagu ma taas sameeyay saxaajiyo hadaa imaqlayso arinta si degdeg ah inaa uga qabataa fariin ka soo saartaa Soomaali hadaan nahayna waa kaaga fadhinaa gabadhan yartaan waxa leeyahay abta haday aan maqlayso codkay ku soo gaaray maadaama gabadh yar tahay laakiin hooyadeed baa la hadlaya gabadhii hooyada dhashay hooyo adiga hooyo fiican ma tiid hooyo akhlaaq lama tiid hooyo tarbiyad lama tiid hooyo anshax lagu soo koriyo dabeecad iyo akhlaaq iyo wanaag iyo deganaan wax lagu soo koriyo ma tiid hooyo sababtoo gabadhaadii yareed ayaa nin afka ka shuuqaya afka ka dhuuqaya adigina waa qusilisa hooy arintan ka hortag arintan baraha bulshada u soo fariiso arintan gabadhaada yar ceebta ku dhacday fadaxada ku dhacday adiga isku keenay waa arin aan aad uga xumaaday gabadhan yartaan waxa leeyahay abta ii soo barbaar ii soo weynow asad xaaji wuxuu sameeyayna bari ka maalin ayuu ka shalayn doonaa waxa sameysay asadow bari ka maalin ayaa ka shalayn doonta Soomaalida waa kugu dayataa role model baa u tahay caankoodii baa tahay maanta YouTube-kaaga intaas oo milyan oo qof ayaa ku xiran arintan hadii aadan ka hadlin ama arintan hadii aadan u soo fariisan waxay tagi doontaa meel aan laga soo baaqsan karin ama meel aan laga soo laaban karin ayay tagi doontaa arintan ka soo hadal soo fariiso Soomaalida ka hadal u sheeg arintan inay arin ay khalad kaaga dhacda ay tahay arin aan mar dambe u laaban doonin inay tahay Soomaalida u sheeg arintan Soomaaliyay anigu waxaan ku qiimeeyay arin xun baa ku qiimeeyay idinku laakiin dii caadi inay la talaya laakiin anigu waxaan ku qiimeeyay arin aad iyo aad u xun mira dhalkeedana waa arki doontaa meesha ku dambayso mira dhalkeeda hadii aadan hadda iska qaban oo ninkan aadan runta u sheegin Soomaaliya oo aadan dhihin waxa aa wado waa arin xun aadan dhihin ninkan wax kale oo ku waaweyn ayuu sameyn doonaa ninkan anaga u yeelyeelnay Soomaaliya waxana iska qabano ninkan youtuberkeena caankeena weeye si degdeg ah ula hadalno aadahna waxan jooji waxan kaama yeel kaama qaadan hadii aad challenge-yadaada waxa daawan jirnay ku taageeri jirnay macnaheedu ma aha inaad saarabto noo sameeyso saarabto inaad ciyaalkeena u dhuuqdo saarabto inaad ciyaalkeena u shimiso khalad weey arintan ka soo hadal ka soo fariiso asad xaaji hadaa codkay ugu soo gaarayo fariinteeda si degdeg ugu soo jawaab si degdeg anigu qutaa production kula hadlay si degdeg arinta ugu soo jawaab u soo fariiso Soomaalida waxba hays dhigolsiin oo hadii arinta Soomaalidu ka hadlayso dhigta faraha ka gasho oo ha u jawaabin waxba hays dhigin arinta cid walba gaarsan madaxweynaha hadaa waa gaartay cid aan gaarin male Soomaalidu dhan bay gaartay arinta waa inaa ka hadasho asad xaadiyo arintan si degdeg uga hadal hadii codkay uu soo gaaro way Soomaaliya hadda maxaa hadda codkay waa gaarsiin ninka hadda codkay waa gaarsiiyay waa ula hadlay jawaabteed
waxaan rabaa si degdeg inuu soo jawaabo anoo quutaa production ayaa waxa ku hadlaya codka Soomaalida intaasoo milaayiin oo qof ah baa codkooda ku hadlaya asal xaajiga haddii aad codkayga maqlayso waa inaad si degdeg arrinta uga hadashaa waa inaad noo soo fariisataa waa inaad apologize ka bixisaa waa inuu khalad kaa dhacay aad sheegtaa waa in wax walba oo gabadha aad ku samayso gabadha yarta aad kula kacdo oo kufsiga u eg waa inaad ka hadashaa waa in qaab daradan lagu fiirsan oo laga hortagaa oo YouTube-kaaga haddii aadan soo fariisan asal xaaji codkayga ma maqlaysaa fariintii ugu dambaysa kuu soo diraya haddii aadan soo fariisan oo arrinta aadan ka hadlin oo apologize aadan ka bixin oo raaligelin aadan ka bixin oo khaladka kaa dhacay aad sheegin YouTube-kaaga ka jaranta Soomaaliduna oo kugu soo jeesanaysa runtii indhaha ka gelinaysa wayna ku sheegaysaa khaladkan in mar dambe laga qaadan doonin lagaana hortagi doon waxa Soomaalidu ku soo wado Soomaalidu waa dad dhaqan leh diin leh akhlaaq leh isku midab ah isku jinsi ah wax walba isku ah haddii marka waxan aad samaysay ka hortag aad dhihi weydo war waa ceeboobay Soomaaliya waa ceeboobay anoo ah ninkii YouTuberka asal xaajiga Soomaaliya waa ceeboobay maxaa sameeyaa marka waxa leenahay ninkaas qof khalday wala khaladkiisa qirta weeye Soomaaliya ha laga dhaco ana dhahay ana ku soo fariisanaa aniga ana soo fariisanay khaladka ku sheegay Soomaaliya ninka ha laga dhaco ana dhahay laakiin sax asadow sinin raga kula hadlay sinin weyn ba kula hadlay sinin YouTuber kula hadlay maadaama YouTuber salnahay runtaan ku sheegay Soomaaliya hadaa khaldanahay anigu hadaa khaldana waa khaldan tahay ninka ina sida kulul ula hadlo sida canaanta ula hadlo waa wax uu isagu isku keensaday waa wax uu isagu maanta uu dhex fadhiyo oo dhiiqo uu dhex fadhiyo weey hadaa khaldanaha way qaban kartaa waxa leedahay ninkiina saa ugu qeylso maaha laakiin anigu ina ku qeyliyo ina dharbaaxo ina garaaco ina madaxa dharbaaxo kala dhaco waa waajib sababtoo gabar yar oo sibi ah oo abti ama adeer uu ka dhigatay oo yiri dhunko abti uu yiri oo afka u soo aadi afka ka dhuuqday waxa qaadan karno maaha ka hortag waa inaan sameeynaa Soomaaliya waa inaan mudaharaad qabanaa Soomaaliya waa inaan ka soo horjeesanaa ninka saas oo YouTuberka caanka saas sameeyay 100 milyan oo qof ah ayuu u gudbin doonaa ayuu jaafin doonaa ayuu akhlaaqdooda anshaxdooda wax walba u jaafin doonaa marka waxa ku soo gabagabeynaya codkayga waxa ku soo gabagabeynaya Soomaaliya isjira dhaqankeena ilaashada akhlaaqdeena ilaashada diinteena suban ilaashada wax walba ilaashada oo bari kamaal waxan yeesay ku soo noqon war dadkeena caanka waxba ka khaldan muuqaalka intaas ku keenaya maanta dhan ba halay ninkan waxa uu sheegay Soomaaliya hadaa khaldanahay qabta idinkan waxaan isku codsanayaa saaxiib ii soo dhawaada muuqaalkan like ii saara channelka subscribe dhaha qutaa production ku soo dhawaada hadaa intaas sameysay saaxiib waxa kugu mahad celimaa qan laakiin ku duceynaya waxa ku leeyahay malaa'igtu ku jeclaato saaxiib guuleyso aad iyo aad baa u mahadsantihiin salaam